marka kow waxaan ku bilaabaynaa as a beginner si qof walba uu noo fahmo iyo dadka cusub si noo fahmaan. Marka maxaa waaye forex waxa waaye foreign exchange lacagaha oo la isku sarifaayo ama sarif leh. Wuxuu bilaabmay markii waddan waliba uu lacag gooniya samaystay 1971 waddan walba markuu samaystay marka lacag gooni ah waddanka mar lacagtiisa kor u dhacaysaa haddana ka kaleeto hoose u dhacaysaa. Marka waxaa lagama maarmaan noqotay inuu meesha imaado sarif leh kaasoo wax kala faa'iidays samaynayo. Kaleeto waxay noqonaysaa wax weeyaan goormo anagana soo gaaray waxaana soo gaaray haddaan nahay retail traders ama dadka lacagaha yaryar wataan markay imaadeen brokerka iyo programka oo awal meesha waxaa joogeen institutionska dowladaha dadka waaweyn. Marka qodobkan oo ah funded sidee loo noqdaa wadada loo sii maraayo si loo noqdo iyo sidee darajadan loo ilaalsadaa si loogu sii gudbo. Marka waxaan ka bilaabaynaa qodobka koowaad oo ah sidee bay u fududaanaysaa dariiqan inaad sii martid maadaama meeshan lacagtaada ay kulmayso faa'iido badan ay taalo khasaaro badan aad kala kulmi kartid. Marka waxay noqonaysaa lambar kow naftaada baro. Haddii naftaada aad baratid waxyaalo badan aa fudayd noqonayaan inaad dareemahaaga xakamaysid inaad go'aamadaada qaadatid in aa xataa waxbarashadii aad fudaysatid oo aad darajada aad doonaysid aa u gaartid. Haddii naftaada aad baran weysid oo runta u sheegi weysid waxyaalo badan adeeg noqonayaan suuqiyo si adag adigiina adeeg badan oo kale lasii kulmaysaa. Qodobka labaad wuxuu noqonayaa waxa weeyaan candleka sababtoo ah waxaa la dhahaa badanka candle bay muhiimad saaraan iyo technical analysis. Suuqa news baa dhaqaajiyo priceka inuu hoos aadiyo inuu kor aadaba waxaa laga maamulaa banki dhexe iyo dowladda. Laakiinse candleku muhiimad gooni buu leeyahay wuxuu kuu sheegayaa ma berri newska halku aadi doonaa ma hoos mise kor. Marka muhiim waaye isagana in muhiimadda la saaro oo la fudaydsado. Marka sidee loo fudaysanayaa siiba ICT dadka waxay dhahaan wuu adag yahay dadka badankooda waxaa ku hadlaynaa luuqad cusub oo dadka dhammaan nabooda fahmi karaan. Marka isagana waxaa loo fudaysan karaa waxa waaye baptism oo maxaa tahay maxaa faa'iido leedahay dhibaatada sida ku ilaalinaysaa amase dhibaatooyinka ku xalinaysaa. Marka baptismka waxa waaye moodalkaaga markaad baratid qofka ku caawinayo macalinkaaga markuu kaa soxo oo xoogaas oranaysa isku filaanshan gaaray laakiinse xoogaa kalsoonimo qabay oo wax ku analyse gareeyo. Waxaad tagaysaa marka daatadii hore 2 sano lasoo dhaafay aad baptism kusoo samaynaysaa moodalkaaga wareedkiisa meeqo trade A plus buu bixiyaa tradeyada A plus xilmay soo laalaabtaan qaab noocay ku soo laalaabtaan waxyaalahaas dhan buu kuu fudaydinayaa kaasna wuu adag yahay laakiin waa fudaydsanaynaa. Marka arrintaasna iyadana fududaato waxaad ku talagelinaysaa marka qanacsanaan iyo kalsooni algoritmkiiba fahmaysaa way fududaanaysaa marka iyadana waxa weeyaan kalsooni baad ku qaadanaysaa tradekaaga cabsi ma jirayso labalabayn ma jirayso iyadana waa taasaa handalku adag yahay laakiin waa fudaysanaynaa. Ta kaleeto waxa waaye akoonkan lacagta way lumaysaa saaro wuu dhacayaa. Marka akoonka waxaa jira profile kaasoo ah soomaalida kulli badankooda baan ka wadaa kulli ma ahane way jecel yihiin sababtoo oo ah anaka meesha anigoo kaleeto lacag faqiirad baan la ordayaa 500 baan meesha la ordayaa. Marka waxaan doonayaa waxa weeyaan inaan helo caawinaad. Profile-miskana akoonsiis weyn waxa u gadan kartaa lacag yar. Profile-miska waa gooni profile-kana waa gooni marka qofka midkuu rabo u galayaa.